qodobka afraad beeshu waxay si wada jir isula qaadatay inay doonato kursiga maayarka caasimadda Hargeysa qodobka shanaad beeshu waxay isku waafaqday in hadda wixii ka dambeeyay cid magaca beesha ku hadli karta shiriirkeedana qaban karta ay tahay guddiga hoodaale bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh warmurtiyeed ka soo baxay shir ay maanta isku yimaadeen 14 bishii afraad 2026 maalin salaasa shir ka qabsoomay magaalada Hargeysa oo qabsoomay beesha Sacad Muuse shirkaas oo ay qaban qaabadiisa lahayd guddiga beesha Sacad Muuse hoodaale shirkan ay ka soo qayb galeen salaadiinta cuqaasha aqoon-yahanka ganacsatada xubnaha beesha kaga jira golaha guurtida shirkan oo ujeedadiisu ahayd is xog wareysi danaha beesha Sacad Muuse xog wareysiga iyo falanqay kadib qodobada ka soo baxay waa kow beesha Sacad Muuse waxay ku boorinaysaa dhammaan shacabka Soomaaliland in si wada jir iskaga kaashada adkeynta nabadgelyada midnimada wada jirka muhiimada jamhuuriyadda ummadda Soomaaliland qodobka labaad beeshu waxay soo jeedinaysaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland in si wada jir loo taageero adkeynta iyo nabadgelyada ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka wado gobolada galbeedka Awdal iyo Salid beeshu waxay isla qaadatay inay muqaddas tahay midnimada wada jirka iyo isku-duubnida beesha Sacad Muuse qodobka afraad beeshu waxay si wada jir isula qaadatay inay doonato kursiga maayarka caasimadda Hargeysa qodobka shanaad beeshu waxay isku waafaqday in hadda wixii ka dambeeyay cid magaca beesha ku hadli karta shiriirkeedana qaban karta ay tahay guddiga hoodaale assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh